soo dhawaada asxaabey maanta waxa idin soo koobi doona film American horror ah oo soo baxay 2013 filimkan magaciisu waa Big Ass Spider waana kan filimku ee daawo oo taxadir filimku waxa uu ku bilaabanayaa dadka magaalada Los Angeles oo la ordaya naftooda si ay uga badbaadaan caara weyn caaradani waxay burburinaysay dhismayaasha sidoo kalena waxay ugaadhsanaysay bini'aadamka waxay kortay dabaq aad u dheer halka ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ay isku dayeen inay soo ridaan oo ay baabiyaan inta kadib filimku waxa uu dib ugu noqonayaa sheekada ka dambeysay inay caaradani aad u weynaato waxaynu aragnaa Alex oo soo gaadhay guri si uu uga saaro jiir ku dhex jiray markii uu Alex jiirka ka soo saaray guriga waxa islaantii guriga lahayd ay Alex siisay hadiyad inta kadib iyagoo wada hadlaya ayaa waxa islaantu aragtay caaro yar oo raacaysa garabkiisa waxayna u sheegtay inuu iska dajiyo caarada maadaama ay tahay mid sun ah islaantii waxay caaradii ku dhufatay kabteeda laakiin caaradu waxay basii qaniintay Alex inta kadib Alex waxa uu soo aaday isbitaalka si uu isaga daaweeyo qaniyadii caarada dhanka kale doctor ku jiray qolka shaybaadhka ayaa waxa uu arkay mid shaybaadhkiisa yaala oo dhaqdhaqaaqaya aad ayuuna u argagaxay laakiin haddana waxa uu awooday inuu cabsidiisa ka adkaado oo uu sii wado baaritaankiisa si lama filaan ah leerkii qolka ayaa isjiday sikadiisana waxa uu arkay caaro weyn oo xagga dambe kaga timi wayna qaniintay doctorkii si dhaqsale ayaa waxa uu u shiday alarmiga isbitaalka dhammaan dadkii isbitaalka joogay aad ayay u argagaxeen markii ay maqleen qaylada waxaana u soo galay doctorkii oo qoorta haya waxaana uu yimid mulkiilihii isbitaalka isagoo u sheegay inay caaro weyn qaniintay laakiin hadalka doctorka cidina ma aanay rumaysan dhanka kale Alex ayaa maqlay hadalka doctorka waxa uuna sheegay in doctorku run sheegayo sidoo kalena waxa uu sheegay inay jirto caaro ka cabir weyn caarooyinkan caadiga waxa uuna mulkiilaha u sheegay inuu caarada ka soo saarayo qolka haddii xoogaa bakshish ah la siiyo mulkiilihii isbitaalkuna waa uu ka ogolaaday inta kadib Alex waxa uu galay qolkii ay caaradu ku jirtay iyadoo la socdo waardiyaha isbitaalka si uu u caawiyo dhinaca kale waxaynu aragnaa Major iyo Carly oo ciidan wata oo u soo socda isbitaalka Alexna waxa uu wali raadinayaa caarada waxa uu arkay meedkii isbitaalka yaalay oo ay caaradu cuntay waxa uu sii raadiyay caaradii waxa uuna arkay in hawaqaaduhu uu furan yahay waxa uu ogaaday in caaradu ka baxday hawaqaadaha dhinaca kale Major waxa uu mulkiilaha weydiinayaa bukaan si khalad loogu soo qaaday isbitaalka dhanka kale waxaynu aragnaa caaradii oo soo weerartay bukaan isbitaalka yaalay wayna dishay bukaankii Alex waxa uu soo dhaqaaqay dhinacii hawo mareenka waxa uu arkay shabag caara ah oo weyn oo meel yaala Alex aad ayuu u yaabay maadaama uusan weligiis arag shabag caaro oo sidan u weyn Alex waxa uu isku dayay inuu shabagii gacantiisa taabsiyo laakiin waxa uu dareemay in gacantiisu uu ku dhagay shabaqu si degdeg ah ayuuna u sii daayay shabaqii haddaba Alex waxa uu ogaaday in caaradanu ay tahay mid aad u khatar ah oo aan la mid ahayn caarooyinka kale isagoo xaqiiqsaday in caaradanu ay tahay mid dad cun ah inta kadib Major iyo ciidankiisii ayaa arkay meedkii caaradu cuntay oday professor ah ayaa taliyaha u sheegay inuu horay u arkay caaradan oo kale professorku waxa uu sheegay in haddii caaradan la dili waayo ay khatar ku noqon doonto bini'aadamka waxa uu professorku sheegay in caarada cabirkeedu sii kordhi doono 24 saacadood kadib Alex waxa uu galay qolkii meedadka isagoo raadinaya caarada Alex waxa uu si lama filaan u arkay caaradii laakiin se way ka carartay haddana waxa uu arkay mar labaad iyadoo u socota dhinaca bulaacada Marley ayaa rasaas ku riday caaradii laakiin waa ay ka baxsatay caaradu iyadoo ka baxaysa bulaacada inta kadib Major waxa uu Alex weydiiyay macluumaad ku saabsan caarada Alex waxa uu Major u sheegay in caaradanu ay aad uga weyntahay caarooyinka kale sidoo kale waxa uu sheegay in caaradanu caarooyinka kale ka khatar badan tahay kana caqli badan tahay kana xoog badan tahay inta kadib waxa uu yimaadeen professorkii waxaanu professorku u sheegay in caaraduna ay gaadhay heerkeedii labaad isagoo sheegay in 24 saacadood kadib ay gaari doonto heerkeeda saddexaad Alex ayaa ku wareeray hadalka professorka waxaanu Major weydiiyay in hadalka professorku sax yahay laakiin Major waxa uu Alex ka codsaday inuu iskaga tago meesha isagoo u sheegay in iyagu ku filan yihiin qabashada caarada inta kadib Alex ayaa ka tagay goobta waxaana israaceen waardiyihii isbitaalka inta kadib professorkii iyo ciidanku waxay arkeen muuqaal caaro weyn oo tiifiyada laga baahiyay professorkii ayaa Major u sheegay in caaradu ay gaadhay heerkeedii saddexaad inta kadib Major waxa uu soo dhacay taleefan waxaana loo sheegay goobta ay ku sugan tahay caaradu Major waxa uu ciidanku amray inay aadaan dhinaca caarada waxay kombiyuutarka ka arkayeen shabaqyadii caarada inkastoo aanay weli arag muuqaalkii caarada laakiin waxay ogaadeen in caaradu ay ku wajahan tahay beerta dalxiiska dhanka kale waxaynu aragnaa beertii oo dad badani joogaan iyagoo waqti ku qaadanaya
caaradii waxa ay gaadhay beerta waxaanay dishaynin dhanka kale waxa isku dayday inay qabsato ilmo yar oo joogay koonaha beerta balse uu ka badbaaday waana uu ka cararay dhanka kale waxay weerartay dad kale oo ku sugnaa beerta wayna laysay waxayna ku ridatay shabaqeeda dhammaan dadkii beerta joogay waxay ka carareen meesha si ay naftooda u badbaadsadaan intaa kadib waxay caaradu soo eryatay ilmo yar si ay u disho laakiin waxa soo gaadhay Alex waxaanu baabuurkii u kaxeeyay dhinacii caarada si ay ugu soo jeesato isaga dadkuna ay uga baxsadaan meesha waxa uu baabuurkii wax yar u jirsiiyay caaradii kadibna waxa uu cagta saaray wadadii caaradii waxay eryatay Alexna waxa uu baabuurkiisa ku kaxeeyay speed aad u sareeya waardiyihii ayaa caaradii ku riday rasaas laakiin caaradanu ma aha mid rasaasta wax ka taraso intaa kadib Alex waxa la soo hadashay Carly waxayna u sheegtay in ciidamo badan ay ku soo socdaan meesha si ay u dilaan caarada iyadoo u sheegtay inuu iskaga cararo goobta dhinaca kale ciidankii militariga ahaa ayaa soo gaadhay goobtii Alex iyo waardiyihiina waxay ka baxeen gaadhiga wayna iskaga carareen meesha ciidamadii militariga ayaa rasaas ku furay caaradii dabcan caaradan waa mid aad u caqli badan waxayna rasaastii iskaga dhigtay gaadhigii Alex waxaanay ku soo tuurtay dhinacii askarta intaa kadib caaradii xoog ayay u booday waxaanay dul martay askartii hadda Carly ayaa isu diyaarinaysa inay aado dhinaca caarada si ay dabin ugu soo dhigto oo loo qabto Alex ayaa ka codsaday inuu raaco iyada laakiin Carly waa ay ka diiday hadda Carly iyo ciidamadii waxay bilaabeen inay raadiyaan caarada Major waxa uu wax walba kala socday kaamaradaha ciidanka ku xidhan intaa kadib caaradii waxay bilowday inay mid u disho nimankii militariga ahaa askartu waxay caarada ku ridayeen rasaas si ay u dilaan laakiin sidaynu hore u soo sheegnay caaradanu ma aha mid rasaasta wax ka taraso shabaqii caarada ayaa waxa uu qabsaday qacantii Carly way awoodi weyday inay qacanteeda kala baxdo shabaqa caaradii waxay soo aaday dhinacii Carly laakiin waxa soo gaadhay Alex waxa uu shabaqii caarada ku jaray mindi Carly waxay ka baxsatay shabaqii laakiin caaradii ayaa u soo socotay dhinacooda intaa kadib waxa soo orday waardiyihii waxaanu rasaas ku riday caaradii waa ay yara wareertay dhammaantoodna way iskaga carareen meesha saddexdooduba waxay ka cararayeen caarada laakiin caaradu waxay qabatay Carly waxaanay ku ridatay shabaqeedii Alex aad ayuu u murugooday maadaama uu badbaadin kari waayay Carly intaa kadib waxa uu u tagay Major isagoo ka codsanaya inuu siiyo caawimaad si uu u soo badbaadiyo Carly laakiin Major waxa uu sheegay in caaradu ay mar hore dishay Carly oo aanay hadda noolayn dhinaca kale professorkii ayaa sheegay in caaradu ay gaadhi doonto heerkeeda shanaad Alex ayaa professorka aad ugu qayliyay isagoo weydiinaya sababta ay caaradu la sii weynaanayso waxaana uu sheegay in laga hortago caarada intaanay sii weynaan oo la badbaadiyo dadka professorku waxa uu soo jeediyay inay caarada shabaq u ridaan meed kamida meedadka dadka dhintay markay taabatana waan kala soo noqon doonaa waxaynu baadhi doonaa DNA-da caarada si aynu u ogaano hormoonkeeda koriinka ee ay leedahay inta kadib waxaynu awoodnaa inaynu adeegsano wax iyada dili doona isla xilligaas waxay TV-ga ka arkeen war sheegaya in caaradu ay soo gashay suuqyada magaalada ayna burburinayso dhismayaasha magaalada askartu waxay caarada ku ridayaan rasaas laakiin caaradu waxay kortay dhismo aad u dheer muuqaalkanina waxa uu la mid yahay muuqaalkii aynu ku soo aragnay bilowgii filimka Major waxa uu ciidanka ku amray inay caarada ku weeraraan helikobtaro dhanka kale caaradu waxay bilowday inay burburiso dhismaha Alex ayaa Major u sheegay inuu joojiyo amarka helikobtarada isagoo sheegay in halka ay dad badan naftooda ku waayi doonaan laakiin Major waxa uu Alex ku amray inuu dibadda uga baxo intaa kadib Major waxa uu ogaaday in caaradu ay kuma badan dhigtay gudaha dhismaha waxa uu ogaaday in caaradu ay dadka u qabsanaysay si ay u quudiso dhalaheeda dhanka kale waxaynu aragnaa Carly oo weli nool oo ku jirta gudaha dhismaha intaa kadib Major waxa uu la hadlay Alex waxaana uu sheegay arrimihii caarada sidoo kale waxa uu sheegay in Carly ay weli nooshahay ayna ku dhex jirto dhismaha waxaana uu ku yiri waxaad haysataa 25 daqiiqo oo kaliya si aad u badbaadiso Carly isla markiibana Alex waxa uu aaday dhinacii dhismaha si uu u soo badbaadiyo Carly dhanka kale professorku waxa uu u sheegay Major in dhammaan ukumaha caaradu ay mar dhow dilaaci doonaan waxa uuna u sheegay inuu si degdeg ah u bilaabo duqeymaha cirka si uu u dilo caarada laakiin Major uu diiday sababtoo ah wuxuu sugayaa ilaa inta laga soo badbaadinayo Carly iyo dadkii kale cabaar kadib Alex iyo waardiyihii waxay gaadheen dhismihii Alex iyo waardiyihii waxay awoodeen inay gaadhaan qaybta ugu sarreysa ee dhismaha waxaanay ku arkeen ukumo badan oo dilaacay waxayna ogaadeen in caaradu ay dadka u urursanaysay si ay ugu quudiso dhalaheeda Alex iyo waardiyihii waxay bilaabeen inay dadka ka sii daayaan shabaqii caarada
Alex sidoo kale waxa uu shabaqa ka sii daayay Carly. Dhanka kale ukumiin waxay bilaabeen inay wada dilaacaan waxaanay soo weerareen dadkii laakiinse waxay ku rideen rasaas wayna ka baxsadeen. Inta kadib Major waxa uu ciidankii cirka ku amray inay weeraraan caarada. Caaradii waxay ku soo dhacday dhulka. Dadkii oo dhan way wada farxeen sababtoo ah waxay ogaadeen inay caaradu hadda dhimatay. Major waxa uu Alex ku bogaadiyay sida uu dadka u badbaadiyay laakiin caaradu waxay bilowday inay istaagto. Alex markuu arkay inay caaradu istaagtay waxa uu waardiyihii ka codsaday inuu soo qaado gantaal saaran gaadhiga militariga. Inta kadib Alex waxa uu u dhaqaaqay dhinacii caarada isla markiibana waardiyihii ayaa Alex u soo tuuray gantaalkii. Alex waxa uu gantaalkii ku riday caaradii waxay ka olashay qaarka dambe dhammaan jirkeedii ayaa jajabay oo ololay waxaanay ku dhacday dhulka. Dadkii aad ayay u farxeen markii ay ogaadeen inay caaradu dhimatay. Filimku waxa uu dhamaanayaa Major oo la hadlaya Alex kuna bogaadinaya hawsha uu qabtay. Haddaba daawadayaal waxaan soo gaarnay dhamaadka muuqaalka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kalena like saar hadduu ku qanciyay muuqaalku. Mahadsanid.